بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ولا ليال إلهي بمهد اسكال سبحانه وتعالى، وحنكو قد جرنا العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. توانكي بري قدام بيسي بشن بركيسن الشهر رمضان، ولذلك وحامضا قفكو soo soomay iyo kii aan soo soominay gaabiska ahaaba labaduba inay ka faa'iideystaan inta dhiman. bisha inta dhiman waa zubdadii, waa inta ugu qiimaha badnayd, waa inta ugu wanaagsanayd ee ruuxii doonayay dembi dhaaf waa dhiman yahay, ruuxii doonayay in naarta laga xoreeyo waa dhiman yahay, ruuxii doonayay jannaadka iyo alfawz biridwaan illaahi caza wajal waa dhiman yahay. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام marka ay soo gasho tobanka dambe xaaladiisu waa isbedeli jirtay, sida Caaisha umm almu'miniin radiyallahu anha ay warinayso. waxay leedahay idaa dakhala al-ashru kaana yajtahidu fi al-ashri ma la yajtahidu fi ghayri. wuxuu ku dadaali jiray tobanka dambe si uunan u dadaali jirin. tobanka dambe waa uga gadisnaayeen 20kii hore ee bisha Ramadaan. waxaa tilmaamaya xadiiskii kale radiyallahu anha wa ardaaha ay leedahay kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallama في 20 الأول لباتنك أجوه الرأيو وحسكو دري جري بصلاة ونوم وصوم وحسكو دري جري وسيحن جري وجيف سنجري راحة وقادن جري وصوم جري وصلاة جري وعبادة سنجري. لكن إذا دخل العشر ومحي وحصل ما كتير جري كان وحوها عبادة أي قدي جري صلوات الله وسلامه عليه. وحينوسي عدينا أرنكا حديثك عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر شد مئزره. haddii nabiga uu tobanka dambe uu galo ijtihaad iyo dadaal ayuu samayn jiray. ijtihaadka iyo dadaalkaasna wuxuu tusinayaa ama uu ka macno yahay maxaa yeelay ijtihaadku waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana. qofka marka mujaahada laga helo markaasu waa maxay alle subxaanahu wa tacaala uu hanuuninaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam juhdiga waa labalaabi jiray. wa kaana yashuddu mi'zarah, hosguntiga ayuu dhuuqsan jiray, guntiguu dhiisha isaga dhigi jiray. bimacnaa waxaa laga wadaaba in laba macnaba waa ku fasirin ahlu cilmiga, in laga wado in nabiga calayhi salaatu wasalaam sida qofka marka uu shaqo qabanayo uu u xaydxayto, u laalaabto, uu hosguntiga u dhuuqsado si aynan marada uga furanoo shaqada si fiican ugu qabto. bimacnaa kinaaya can aljiddi walijtihaad. waxay culamada qaarkood ku fasireen wahuwa alaswab inay tahay kinaaya can ictizaali nnisaa, in dumarka laga dheeraado in laisfarayo. maxaa yeelay tobankan dambe maaha toban ladaadka iyo macmacaanka iyo dhaldhalaalka dunida loo leexanaya ma ahe, waa toban u baahan qofka inuu dadaal dheeriya inuu bixiyo, inuu ka fogaado jiibka iyo guryaha iyo noloshii wanaagsaneed iyo raashinka isku duba dhacsana inuu ka fogaado ayaa la doonayaa. sida cali radiyallahu canhu kama fi bacdi riwaayaat ku sugnayd in kaana idaa dakhala tawaa firaashahu wactazala annisaa. waa maxay gogashana waa laabi jiray, reerkiisana waa ka dheeraan jirayoo waa ka fogaan jiray. ولذلك روايات كطبراني أوري ولو ضعف أكجره مركة طبعا كدما وصاقر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذو غمضا بالتلمام يساه رواية ضعف بكجره. لكن وحائيضنا إنه أكيد كرا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليلة هبينك والنورين جري هبينك بدنك أما دمانتيس كما في المسند من وجه آخر وأحيا الليلة كلها هبينك ودب النورين جري. محكو النورين جري أنواع وعبادات، قرآن أخرس، صلاة، ذكري، تصبيح وتنويعين جري النبي عليه الصلاة والسلام. هبينكي ونولين جري ما أهين هبينكي سيدا هبين نذا قاركود أو كل سن إن ويهي سام الليل سوجيت عن تربقش يما لا يعني كدالتانكي سما أهين هبين وحوها كله عبادة محيا لي ليلة القدر أي النبي عليه الصلاة والسلام أي كد ذلك جري كان يتحرى ذلك. وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام دأبقيس وكان يوقظ أهله أهل كيسنا واكعين جري
oo keligii ma cibaadaysan jirine amarkii rabbaaniga ayuu fartoomi jiray oo ahaa quu anfusakum wa ahliikum naara adinka iyo ahalkiinaba naar ka badbaadiya naftiina iyo ahalkiina keli inaad naftaada la badbaada ma aha waa inaad xaaskii iyo ciyaalkii iyo ubadkii iyo qaraabadii intaba inaad ka walwasho ayaa la doonaya waa sidii alle subxaanahu watacaala qur-aanka uu ku amray wa'mur ahlaka بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وحال ليه هي أمر أهل كاغا صلاة أمر أكعي أتوسي كون صبر أركا محايا لي الأمر بالمعروف مركا وناقا أتكشقينيسو أو أمريسو وأتكتر بينيسو قري كاغا إيا بيت كاغا waxay u baahan tahay sabar dheeriya waxay u baahan tahay mujaahada dheeriya waxay u baahan tahay istimraariya iyo joogteyn bay u baahan tahay ma ahan miro lagu guranayo hal maalin ama laba maalin waqti dheer gelin bay u baahan tahay tarbiyadu reerka iyo ubadku waxa weeye min bidaayat bal qabla takwin inta reerka la dhisin ilaa inta uu alla subxaanahu watacaala uu ka oofsanayo qofkaasi wuxuu ku jirayaa tarbiya libaytihi wa liusratihi walidaalika alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi laa nas'aluka risqan naxnu narzuquk arsaaq kuma weydiinayno innaga ayaa ku irsaaqayna ayaa halkaa waxaa la tilmaamaya ishaara ilaa waa maxay tilmaam la tilmaamayo way inay tahay qofku waxaa laga yaabaa inuu ku cudur daarta u yidhahdo bilraadis baan ahay waan mashquulsanahay iyaga arrimahoodan ku mashquulsanahay jaanis iyo tarbiyaba uma helin wacdi inaan waaniyo uma helin inaan diinka kusoo dabaalo uma helin kullu hada waa maxay waa acdaar waahiya weeye لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أرزاق ذا اللي سبحانه وتعالى إساقاب بحية حداد سكة سودة داش هبين إيا مالين سيدي دميركي هدو قفك أشقيه مصو حصلين كرا انت لو قدر إنك بضن وأنا حديثك جبريل سيدة أشيغي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها نفند لمن ميس إلا رزق غيد وأيضا ما يسترته وحي لو قدري إلا أيضا ما يسترته كل هذا سيدة تهي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ومحي لك عبصده وددا أد حلاشة كون هذه الإنسان اسك قرحية رزقي وددا أد كون هذه الإنسان ودا حلالك كدقة يينا كين الرزق رادين تاد تضييع الحدود والحقوق حقوق دي اللي بقولها هي حدود إنه يضيعمان حيسا كين ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله سيدة حديث كبي ذر تلماميه هبينا ذا وترقة حتى عند سيدة ليلة 27 غير كيسي ورن يا زوجات كيسي أيو تلماميه طبراني وحكورينيا من حديث علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله في العشر الأواخر طبعا كدام يوكعين جري وكل صغير وكبير يطيق الصلاة متكستو يرئي متكستو وين الصلاة ذكره إنه عبادة يستأو كره وكعين جري سي أيوا محي وقاقيب قاتان سي أي وقاقيب قاتان بل رسولك صلى الله عليه وسلم علي يا فاطمة رضي الله عنهما أي أتجروا قريها كقراع جري وأرنجري ألا تقومان فتصليان ورمينا كعين وصلاة إن تكنين وعليه وحلوبها ولا ليال إن أن كددا له توسنت أهلك إن خير كان وناجن بشن صعنية يا رحماتك الله سبحانه وتعالى وقيبين إن نجلق قاتان أيال الدنيا أو كل جنا خيرك آنن كجاب سنين أيال لجا مارمانا هبين كان أما طبعا كان دم ولا ليال وحكجره هبينكي ليلة القدر ليلة القدر وهبين عظيمة جدا وهبين أرنكي سأل سبحانه وتعالى أويني وحلقوت الماما إنو يهي ليلة مباركة هبين بركيسا إنو يهي أيال لقوت الماما كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة قرآنك وحنسود الجني هبين بركيسا وهبين بركيسا يسوغر أن بركية خير صعداء وحلقوت الماما إنو يهي هبينك قرآنك اللي سودجي إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآنك وحل سودجي هبين ليلة القدر وهبين الله سبحانه وتعالى وأرن كيدا وينيي عظم شأنها وما أدراك ما ليلة القدر بالليم حاكو قيسي ليلة القدر كوحا ويهي بمعنى لعظمها درجة إيا رفعة إيا السرين إيا قيمة على أكتي وكجوك هبين كاسي محاكو قيسي أيا لليهي مركاسا وحل غصي درين قيمة جيدة إنو يهي خير من 1000 شهر وهبين كن هبين كخير بدن هذا كن هبين بيقولك متى الله متى معها كن هبين بكخير بدن تاي كفي عن تاي كن كهبين وحلقوت المامي إن لقو قياس عمرك إنسان كوا
saddex iyo siddeetan sano 83 sano qof la cimri siiyey oo cibaadaysanayay cibaadaadkiisii halkaa habeena u dhigmo oo ka fiican bal waxaa tasawurtaa cimrigaagu intuu la ekaan karaa ولذلك مالك رضي الله عنه أسجل لقصه ورجري مالك بن أنس إمام دار الهجرة بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ابن نبيك إن أمضها لتسيي أعمار غير الكوض الله يابي أمضنا عمري جيدا يقابني ذي ذو الله يابي ويريسي مركز الله سبحانه وتعالى وحو بدل أسيي ليلة القدر ليلة القدر مركز سند والبقفك كفا إذي عمري جيسا وحكو زيادة سديتا يسدح سنو ومن هنا أمدا محمدية هم الأولون الآخرون يوم القيامة وكوا أمضها وجدا بي حاجة توقيت كي حاجة وقتها لكن مع ذلك الأولون وكوا أجوه الرأي أول من يجتاز الصراط قفك أجوه الرأي الصراط ككتب بدون والنبي أمدي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة جنة الروح أجوه الرأي الله فريد وامحي ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أمدي أمدني مركب وأمد الله سبحانه وتعالى وكرامي هبينك ليلة القدر هبينك ليلة القدر وحلقت المامي سلام هي وهبين نبت قريئة إلا وفجر كذا كبر ييو إلا واجا وكد لاعي وهبين ومحي سلام كاسي ومحي آفاتك يا شرورك يا وحصرا أيال لجنة بتقرية وحلقوا مقعب ليلة القدر أيال يري لعظم قدرها عند الله اللي أكتيده أي قيمة يوزن كل هذا حكرا لقوت المامي إن لو مقعب لتقدير الله سبحانه وتعالى ألا هبينك وحيا لقدره وحي كون كان كدع لها سنة كاس وحي دع لها بال قدره وحانت المامي قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين هبينك سوى هبينك اللي قدريه ولا قرية مقادير تخلقه أيها اللي قدريه إسلام مركز نوامحي habeenkaasi waxaa lagu tilmaamay malaa'igtii ayaa dhulka u soo hoobanayso tanazzalu almalaa'ikatu waruuhu fiiha biidni rabbihim min kulli amr waa maxay ummadii waardiyeerayaanoo habeen ay ka fara badan yihiin ma jiraan ayaa la tilmaamay habeenka walaalayaal qiimaha badan ee aadka loo amaanay ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu yidhi taxaruu leylata alqadr war habeenka leylatulqadarka ku dadaala حوت المامي هبينك ليلة القدر إنه كجره التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وحد كدح راديسان طبعا كدن بقى بشهر رمضان كدح رادية مركز هذا الروايات كلو حكوت المامي التمسوها في كل وتر تركستو إسدارة كدح رادية التمسوها في كل وتر تركستو إسدارة كدح رادية التمسوها في سابعة في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى يكتل مامي تروين كإسدار كأهي هبين نداس سدح لواتنك يشني لواتنك يتضبي لواتنك يسغال لواتنك تروين كالنوع عاسة كدح رادية أيوة المامي نبي عليه الصلاة والسلام إذن ولا ليال هبين كاسي نبي عليه الصلاة والسلام ومد أصابحي إساقوا الربا إنو أشيغو هبينك ليلة القدر كهبينك ويهي marka uu soo baxay buu ka war helay laba saxaabadiisii kamid ah oo waxoogaha murmaya ishaysto iskhilaafsan waa la halmaamsiiyey halka wuxuu ina tusinayaa inuu khilaafku shariya khilaafku meeshuu soo galo uu burburinaya habeenka laylatul qadarka barakadeeda iyo khayrkeeda waxaan ku weynay in loo sheego habeenka ay tahay bidaat bisabab khilaafku waa maxay ummadda wuxuu u sababayo waxa weeyay wax sahlan ma وإيدي غزوة الأحد وتلمامي الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خلافنا ورهم أهمر مننا هكلا التقينا محايا لهذا سيدا سميسان فتفشلوا فشل بالقدعي حضي فشل القدعنا وتذهب ريحكم أوديني وتغيسة أودي سيسشدي هيبدي وحنا باللمي أرنك هكا إيجينا أمد الجود المسلم كما توحى قدعي إيجا اسخلافك kala fogaanshaha waxa uu sababay dulliga iyo hawaanka ummadda Soomaaliyeed bal eega qabyaaladii iyo isnaceebkii iyo cuqdadii iyo cunsuriyadii waxa ay sababtay maanta waan dareemeynaa waxa qurbahan iyo meel kasta ummadii kuwii wadankii joogayna waa ku dhibayeen kuwii dibadaha joogana waa ku dhibayeen khilaafkii waa sabab u ah reeraha bal eega khilaafka uu soo dhexgalay ee maxaa la yiraahdaa awoodoodii ay kala tagtay fatafshalu wa tadhhabu riihukum ku dhacay reerkii uu burburay barakadii laga qaaday ilmihii midba meel ku firxaday qaaradaha dunida ay kala jiraan dacdarro iyo silac oo dhan uu sababtuna waa maxay bisabab khilaaf idan khilaafka
walaalayaal laylatulqadarka sababsaday guryaha iyo caa'ilaadka inuu duma sababsaday maxaa leh ummadii Soomaaliyeed dacdaradeeda iyo dulligeeda sababsaday ummadda muslimka oo dhan inay maanta mashaakilka iyo halka ay taagan tahay waxa looga bixi kara waa maxay in Allah subhanahu wa ta'ala loo laabto isla markaasna khilaafka meel iska saaro ummadii wada jirkeeda iyo wanaagii iyo walaaltinimadii in la soo celiyo ramadaankuna waa jaanis iyo fursad arrinkaasi cid kasto ku tadabburaysa laylatul qadarka inuu arrinka fahmo waa daruuri walaalayaal acmaasha muhiimka ah tobankan dambe waxa kamid ah qiraa'atul quraanka akhrintiisu maxaa yeelay quraanku waa bishii la soo dejiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maxay waa khatimi jiray jibriil baa la mudaarasayn jiray wa shahr alqur'aan way walidaalika tobankan dambe afdal alacmaal quraanka akhrintiisa ku tadabburidiisa quraanka waxa loo soo dejiyay liyadabbaru aayaatihi waliyatadhakkara ulul albaab in lagu tadabburo ayaa loo soo dejiyay sidaa daraadeed walaalayaal in aad loo akhriyo quraanka la khatimo intaasoo khatmo ayaa la doonaya waxaa la doonayaa in quraankii lagu tukado oo lagu tahajjudo قيام الليل iyo taraawiixdi iyo salaadaha kale oo dhan lagu dadaalo maxaa yeelay xadiiskii nabiga si aan u helno man saama ramadana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي صومه أما استاغا هبينك رمضان قيام أتاغنادا استاغو الله سبحانه وتعالى الرميسا فرضية يواجب كذا أرنتاس عقيديسا إسلام مركز ومحي احتسابا إخلاص يدعى النمى أجر رادس أي كتهي لا رياء ولا سمعة ومحي دنبقيسي ولا ضافية إذن وعبادتك مهمك وحكم إذا عبادتك مهمك التماس العفو من الله دنب داف إن ربي لو يديس عائشة رضي الله عنها بنت الصديقة رضي الله عنها وأرضاها حيث الماميسة نبي ويديس أرأيت لو علمت أي ليلة القدر رسول الله بالكورا لعل هدي لي تصيو هدي أن أقاذو هدي لي أقيسيو اللي وافجيها بينك ليلة القدر كمحان إراحضا محان كو قولا محان كو دعيسا محان ربي كبريا مركاسي وحو النبي صلى الله عليه وسلم قولي وحتى رضا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ربي أذيق وحتى ألا عفس بدن عفو واسم من أسماء الله ربي عفس بدن باتاي دنوبتو نواد عفسا تحب العفو ونجعشها عفينت أضومنك عقابته وذا مجعلت حدنا الله كريمة وقعان فران وديق بدن باتاي صفات كاسو دنبات ربي وكسي فيسانتا هاي أنيقون الدنبيلنا هاي فاعفو عني إله اسككي عفي ساس كدو عيسى أيو كلتلي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم دعادنا ولا ليال وسلاح المؤمن وأوده يقوذ الروح مؤمن كأه هو العبادة سيدة حديثك كتمت وعبادة بل هو مخ العبادة هو وحوي عبادة الرسم جيدا هو العبادة عبادة وإسقى آيات ما نتلمام يسوء لهيس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي دين حليه هي يعابده ربكم ادعوني إبريا وقعمها كر أتاك أستجب لكم ونذنك أجيبيا إن الذين يستكبرون عن عبادتي هو إسكا كبرسينيا بريضة الله بريغا يقعم كر أتاك عبادة لقعبري سيدخلون جهنم داخلين جهنم القلية ولذلك رب سبحانه وتعالى في آيات الصيام تذكر وحكيري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي هديك ويديان الضوابط إذا عني أنيقا فإني قريب وأودوه أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأن كأجيب يا متكوذي ومحي بريا وأن كأجيب ولذلك وحكم إذا عماشه ونكسن ولا ليال صدقاتك iyo qofku inuu bishani inta aysan khatimin wuxuu la bixi kara inuu la baxo alla agti uu xor marsado xadiiski waxa tusinaya inna fil jannati ghurafa jannada waxa ku yaalo guryo iyo qolal waa maxay gudaha waxa ku jiro banaanka laga arkaya banaanka markaad gudaha joogtana banaanka daymoonaysa bimaana waa guryo dhalaalaya wada quruuradahaas ah shafaaf ah ayaa ku dhex yaalo aad u qurux badan markaas la weydiiyay Abu Musa al-Ash'ari baa weydiiyay liman hiya ya rasuulallah ya iskale markaas ku tilmaamay ruuxi afar sifa laga helo liman ataaba al-kalam ruuxi hadalka wanaajista عن تربقش ما لا يعني لغوي كإلالية لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام راشين كبحية بمعنى الصدقات فربضا سمية وأدام الصيام صون كان دائما وصلى بالليل والناس نيام حبين كنا تكده وقت أيدتك الجيفان
waqti ay dadka jiifaan ay hurdaan qafle ay ku jiraan isaga rabbi baryaya subxaanahu wa tacaala waqtigaas dadka samaynaya acmaasha dadka sameeya ayaa jannadaas helaya. nacam nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam walaalayaal ninka wuxuu ku yidhi ina sharaa'ic alislaami qad kahurat calaya waa igu badatay sharaa'icda islaamka waxaad ii sheegtaa shay aan qabsado aan ku dhego ii sheeg. markaasuu nabiga sal slam wuxuu ku yidhi dikra allah xuska ilaahay waxyaalaha u baahan tobankan beri inuu carabka yaga uu ku qoyanaado dikriga ilaahay oo aan afka ku hayno sidii uu mucaad kula dardaarmay laa yazaalu lisaanaka radban bidikri illahi caza wajal yuunan ka zuulin carabkaagu inuu ku qoyan yahay uu mar walba uu afka ku hayo dikriga ilaahay xuskiisa. dikriga ilaahay wuxuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam alaa unabi'ikum bikhayri acmaalikum war miyaanan idiin sheegin camalkiina midka ugu khayrka badan midka maxaa lay alla agtiisa wa arfaciha cinda malikikum wa askaaha ugu tahiran ugu sharafta badan idinkaga khayr badan min an tunfiqu adahaba waalfida dahab iyo fida inaad sadaqaysataan wax ka fiican miyaanan idiin sheegaynin. wuxuu ku tilmaamay wa khayrun lakum min an talqaw caduwakum idinkaga khayr badan inaad dagaal jihaada gashaan oo cadowga la kulantaan oo markaas aad qoorta ka jartaan adinkuna ay qoorta idinka jaraan oo sidaas isku shahiidaan shahaadada wax ka khayr badan miyaan idiin sheeginin. markaas bala yaa rasuulallah nacam noo sheeg. dikrullah buu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam dikriga ilaahay ayaa muhiim walidaalika walaalayaal bishan khayrka badan way khatimaysaa maa hiya ilaa ayaam macduuda waa maalmo tirsan siduu alle ku tilmaamay ayaaman macduudaat shalay dhalatay maantana waa gebagabo gebagabadeedu aan gaarno dadka naarta laga xoraynayo dadka jannada loogu bishaaraynayo dadka loo dembi dhaafay aan ka mid noqonno yaanan ka mid noqonin dadka uu malaku jibriil iyo nebi moxamed sal slam ay habaareen uu yidhi raqima anfu mri'in dakhala calayhi ramadaanu falam yukfar lah ha duloobo sankiisa ha booroobo ha ayaan darsado naarta ha galo qof ramadaan uu usoo galay uu baxay ramadaan isagoo aan loo dembi dhaafin qofkaasi ha ayaan darsado aamiin dheh. markaasuu nebi moxamed sal slam wuxuu yidhi aamiin. jibriil baa ducaynaya نبي الله محمد آمين بقوله إن الله سبحانه وتعالى أرنك ونقبل بهذه ربي وحن كبري عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا أن يتقبل منا الصيام والقيام أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنه إله سبحانه وتعالى ونقل قدتك صومك وضل أقبلي صلاة وضل أقبلي لودن بدافيه إنك إيه والدينتين أبياشين إيه هويين كان علماءنا إيه مشايخنا إيه إنك الصوح نصوبرتي إيه عدك الصوف فضل إيه حقوق نقولها دتك لا أقبلي oo loo dembi dhaafay inuu naga dhigo alle subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed inuu nasri khayr qabo iyo dowlad tabar leh xoogaysata inuu ilaahay subxaanahu watacaala shareecadeedana xukumaysa uu siiyo ummadda muslimkana dhulalkooda uu dejiyo nasri iyo cizana uu ku soo celiyo hada wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.